magacaygu waa Sahra waa isguursanay da'deedu waa 25 sano askariga oo taliyaha ahaa wuxuu igu sameeyay wax adiga fikirkaada ka dhaadhiceynin waa ku guuleystay unugina isku soo riday taliya Xamud wuxuu bilaabay inuu meesha rabo u maro Maxamed wuxuu haystaa Cabdiraxmaan waxa ku dhashtay magaalada Qabri Dahare wiilkayga waxaan u baxsaday Cabdiraxmaan hooyadii iyo aabahay halkaas ay iiga dhinteen faquuqo in qof kale la iga soo qaado magacaygu waa Sahra waxa ku noolahay magaalada Jigjiga da'deedu waa 25 sano waxa ku dhashtay magaalada Qabri Dahare halkaas ayaa ku soo barbaaray hooyadii iyo aabahay halkaas ay iiga dhinteen waxa uu soo hayaamay magaalada Jigjiga waxa aan la joogay qayb kamid ah familkayga anigoo halkaas kala kulmay tacadi aad u daran ibaato in la faquuqo in qof kale la iga soo qaado in maalin walba maxaa la hadal xun kor kale iga tuuro qofkii kale hooyadiis iyo aabihiis ay dhintaan dareemi kara xaaladaas ka gudubno ma daarano inaan ka sheekeeyo familkii aan la joogay iyo dhimashada hooyadii iyo aabahay sheekadeeda maalin maalmaha kamid ah waxaan isbaranay ninkaas ma ahaan qoomiyadaha kale ee nugula nool magaalada waxaan Soomaali hawaade nin hantiilo iska aha oo wax Ilaahay wax u dhiibay sheeka iyo maxaa la dhahaa ee jacayl ilo wadaagay waa la sheekaystay wuxuu ugu qanciyay inta isguursan waa ka ogolaaday waa isguursanay guurkaas guur dadka aan la joogay iyo walaalahey kale ee ilo ogeeyeen aniga keligay waa guurkaas ورا وياشتي نينك إلى أمريكيس ورا كمرك وياشتي وسعيري كورنا ديدتك أنا كلي أكون ولا واي أنا عنقة اللي يقصد حلي مع دريم كراك ولا طن الحمد لله ويل يا إيدشتي ويل كيا وحن أبحث ذي عبد الرحمن إله يا إيكوري ويل كيا إيكوري لا بس أنو إيجاري قيانة كم كراني منك أنا كان ضقني منك كراي sidii oo kale mid taliyaha bartay ka waran askari isku taagay kii hantii la Iirana ninkii askariga oo taliyaha ahaa wuxuu igu sameeyay wax adiga fikirkaada ka dhaadhiceynin anigana iga dhaadhiceynin asagii igu sameeyay ilaa uu ka jaasiyay wuxuu igu dhahay wiilkaaga Cabdiraxmaan waxa siisa aabihiis adaartina isku guursan anigana dhibaatadii ay igu sii badatay waxa gaaray heer aan muto qoomiyadaha kale ee Soomaalida ahayn in la noolaado dad aan diin nadiirin laakiin sadalka isku la noolahay in aan la noolaado aniga oo danteeda fiirsanayo waxa go'aansaday wiilkayga Cabdiraxmaan inaa u dhiibay ninka soo caloosh ku jiray ila soo ceyriyay oo u dhiibay maxaa dhacay sida islamid ah waa isguursaday 2 bil marka isqabno uuraayashtay danoo la soo buriyay markii la soo buriyay sida hor doqon ma noqonin laakiin hada ka sii doqonsan cunuga bilaab inaan soo dilo yaraa calosh ku jiray waa ku guuleystay cunugina isku soo riday xanuun iyo dhibaato ka maray cunugaas dambigiisii aniga dhibka aan maray waxa dusha saartay taliyahaas magaca u bixina Xamud Allah taliya Xamud wuxuu bilaabay inuu meesha rabo u maro uu adduun ku raaxaysto laakiin xaqayga ka soo iftiimay maanta inta waxna ma qabsan karo waxna ma qaadi karo taliya iska dhaafi naftiisii taay koobiyo ma cabbi karo ninkii hore ee Cabdiraxmaan aabihiisi waxa la dhahay Maxamed wuxuu haystaa Cabdiraxmaan laakiin Cabdiraxmaan kadib ubadu dhalay xaqaygaas ma soo baxay sheekadii intaas kuma ah soo socota baartu waa idin soo siideen doona anigu magacayga waa Naciima laakiin qisadan waxa ila soo wadaagtay gabar Soomaaliyeed gabadhaasna waxa la yiraahdaa Sahra insha Allah baartu waa in soo gudbay